maamulka isbitaalka weyn ee magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa ka hadlay maalmihii la soo dhaafay xanuunka jadeecada oo ku soo badan hayay magaalada Kismaayo iyadoona iminka ay ku jiraan isbitaalka weyn ee magaalada Kismaayo in ka badan 26 qof oo uu soo ritay xanuunka diraaga ee jadeecada. Haddaba Maano Mukhtaar Xasan iyo Khadiijo Birmad Cigaal waxa uu ka mid yahay ehelada uu soo ritay caruurtooda xanuunkani jadeecada waxayna u sheegeen warbaahinta. كنتي فيلي قبر maxaa kaaga dhacay xanuun jadeeco maanta waxay jiifaan shalay aan keenay ma xawal laba inoo tahay qandho markii gabadha daran wiilku rooyahay inta aad keentay halkan bal ka waran hadda xaaladooda way fiican kana tahay dhaam soo kalqayn hadda dhaw soo kalqayn laakiin gabadha zaid u daran naqaska wasiga bangartay inta yimaadeen halkan wax dawa ma helaan daawaysi subax iyo galab daawaysi hadda xaaladooda si war badanta ma sha Allah halka canugan iga xanuunsan keeno oo jadeeco iga dhacday saddex bari ka hor aan keenay halkan keenay garaab oo aad u liitay هذا هو ناسي الحمد لله ولا يدري ولا جميل باليسي أبدا داول الله شفا ما شاء الله هو يسول النار وروي تدعى كل الفوز ما كبر قندا يحمد دايما كواركي كدم مكانها إما دقتي تيعدي ugu dambeyn agaasimaha isbitaalka ee magaalada Kismaayo mudane Dr. Xuseen Sheekh Qaasim ayaa warbaahinta u sheegay in maalmihii la soo dhaafay ay jireen xanuunka jadeecada oo ku soo badan haya magaalada Kismaayo 352 ruux yaa isbitaalka la jiifiyay muddada uu xanuunkan jiray hal qof baa geeriyooday intii kale way fiicnaadeen way caafimaadeen wali dhibkii uu taagan yahay meeshii waad aragteen way buuxdaa waqtigan aynu hadlayno 26 qof baa ku jira meeshii karantiilka jadeecada idina waad soo booqateen sida dadku ay ogyihiin xanuunkan jadeecadu ka hortag buu leeyahay talaal baa jira ilmaha la siiyo talaalkaasi wuxuu ka difaacaa xanuunkan inuu ku dhaco ilmaha magaalada Kismaayo 16 goobood oo talaalka jadeecada iyo talaalada kale lagu bixiyo yaa ka jira waana si darra carruurtii magaalada joogta haddana jadeecadii inay ku dhacdo iyadoo talaalkii jadeecadii magaalada yaalo